waxaan qaadanaynaa maanta wax loo yaqaano six right of drug lixda xaquuqood ee daawada marka daawo qof la siinayo ama la rabo daawo in la bixiyo waa in la maraa lixdan right drug daawo sax ah right dose qiyaas sax ah right patient bukaan sax ah right route meel sax ah right time waqti sax ah iyo right administration iyo maamulid sax ah lixdan shay waa in la helaa marka la rabo in daawo la bixiyo ama la rabo in daawo la isticmaalo tusaale ahaan oo kale lixdan waxay basic u yihiin in qofka ama bukaanka la siiyo daawo sax ah daawadina loo maamulo sida ku habooneed loo rabay daawadaas intaas ay waxay ka kaalmeynaysaa qofka inuu noqdo bukaankii ama daawadii ama maamulidii inay wixii dhan ay noqdaan wixii loo baahnaa number 2 red drug daawo sax ah in la siiyo bukaanka waxay ka caawinaysaa in uu dareemo bukaanka firfircooni badan sababtoo ah daawada saxda ah ayaa wuxuu ka heli karaa qofka caafimaadka uu u baahan yahay ayuu ka heli karaa right dose waa maxay qiyaas sax ah waxaa la siin karaa bukaanka marka la hubiyo miisaankiisa iyo da'diisa markii la hubiyona waxaa suurtagal noqonayso in right dose qiyaas sax la qofka haddii da' qaldan tusaale ahaan oo kale asagoo 20 sano jir hadduu sheegto maxaa la yidhaha 12 jir daawadiina ma noqonayso marka daawo adult loogu talagala jil dareen marka waxaa la kala ilaalinayaa jil dareen iyo adult daawada la kala ilaalinayaa marka red patient waxa waaye bukaan sax ah si daawo loo siiyo bukaan sax ah hubi bukaanka magaciisa iyo magaciisa inuu yahay sax tusaale waxaa dhici karta in patientiga isbitaalka jiifo oo kale bukaan badana isbitaalka jiifo sariirihii waxa waaye qof walba 3 ayaa isbitaalka lagu jiifi karaa ama 2 ayaa lagu jiifi karaa labadaas qof waxa ku kala saari kartaa magaca saxda ay ku qoran haddii magaca tusaale ahaan koowaad uu iskaga ekaado inta badan patientiga waxaa la sameeyaa magacooda oo afaran ayaa la qoraa magaca afaraad waa la qoraa sababtoo ah laba bukaan ayaa waxay noqon karaan isku magac noqon karaan marka waxa lagu kala saarayaa labadaas bukaan magaca afarna ayaa lagu kala saarayaa in magaca la hubiyana waxay ka saacidaysaa in qofkan la siiyo daawo sax ah haddii magaca uu qaldamana meeshaas waxaa ka imaanaysa daawo qaldan in la siiyo bukaankii oo meeshaas ay ka timaado dhibaato ay ka dhalato marka right route meel saxa in laga siiyo daawada bukaanka tusaale ahaan daawo muruqa ah haddii qofka laga siiyo xididka waxaa ka imaanaysa qofkii dhibaato badan ayaa u imaanayso waxaa suurtagala qofkii inuu ku dhinto oo daawadu ku dhinto sababtoo ah daawadu waxay ahayd muruq ama muruqa waxa waaye sinto kale iyo meel walba oo muruq ley ah waxaa loo yaqaanaa intermuscular systemka daawada loogu talagalay haddii IV laga qaato intervenouska waxaa ka imaanayo dhibaato ayaa ka imaanaysa marka dhibaatada sidee looga badbaadi karaa in qofkii marka la raaco sharciga ah right route meel saxa in laga siiyo right time waa maxay waqti saxa in la siiyo tusaale qofka waxaa loogu talagalay inuu qaato maxaa la yiraahdaa daawadan maxaa la yiraahdaa tusaale ahaan oo kale 2 saac oo kale inuu qaato ama halka sax haddii duurka la siiyo oo macnaha 6 saac la siiyo daawadu waxay noqonaysaa qalad ayay noqonaysaa marka waxaa laga yaabaa qofka inay effect u keento xilligaas dhiiggiisa uu kacsan yahay meeshaas ay problem ka timaado marka waxyaabo waxaa jiro loo daayo waqtigooda loo daayo tusaale ahaan oo kale hadda markii stool examination oo kale saxarada la baarayo waxaa jirto parasite gooryaan loo yaqaano amebiasis amebo ama histolytic cyst ama amebo histolytic fagatitis mid ka raba ha noqdo amebahaas dhaayid wuu dhintaa sababtoo u dhinta waxaa waaye qofka markii laga qaado saxarada wuxuu noolaan karaa amebahaas 2 hours 2 saac uu noolaan karaa marka shaybaaristiga mastibi maxaa ku noqonaya waajib in 2 saac gudaheeda uu ku baaro sababta maxaa waa sharciga waxaa la ilaalinayaa ee baaritaanka marka saxaro stool mastibi waa in lagu baaraa 2 saac gudaheeda marka waxa loo dhahay waxaa la ilaalinayaa waqtiga ayaa la ilaalinayaa marka daawada in waqtigeeda la ilaalina waa muhiim marka waxay ka saacidaysaa marka waxyaabahaasoo dhan waxay u roonaanayaan in maxaa la yidhaha waqti saxa la sameeyo marka right administration si sax ah in loo maamulo daawada
in talaajada haddii loogu talagalay tusaale ahaan daawooyinka qaarkood waxaa jiro insulin injection oo kale talaajada u baahan tahay maamulkeeda saxda waa maxay in talaajada la geeyo wixii qabowga digriga loogu baahnaa gaarsiisay in la gaarsiiyo taasaa habboon marka